عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشي قيمها يوم مدن وكسود وهذا برنامج كني عافمادك oo ay maanta kaga hadli doono xubin aad muhiim ah xubintaas oo ah sidee loo kobciyaa maskaxda ama loo iftiimiyaa ama xusuusta loo siyaadiyaa insha Allah dibna taas aynu soo qaadanaa kobcinta maskaxda ama xusuustu waa hibe Ilaahay ina siiyay laakiin se waxa jira mararka qaar ay hoos u dhici karto oo ay mararka qaar timaado in hoos u dhacdo taas oo ay dhici karto in maskaxdu ay leesho qof oo ku bato ama maskaxdiisu xifdigiisu ama waxyaalihiisu hoos u dhac ku yimaado marka insha Allah bidib ilaahay kan waxaan soo qaadan doonaa sagaal shay oo marka ay faa'iido inoo leh kuwaas insha Allah qof walba isku day doono inuu adeegsado si maskaxdiisu ay dadka ka caawinayaan maskaxdooda hooseyso xagga xusuusta kale ku hooseyso ay isticmaali doonaan insha Allah bidib ilaahay karim qodobka waxa weeye waxa loo yaqaan hurdada دراسات soo saaray waxa sheegaysaa qofka uu hurdo ka hurdo fiican yahay ama uu waqti goor ka seexdo inuu ka maskax saacido iyo xusuustiisa iyo qofka ku xasuusta aad iyo aad fiican iyo xifdintu aad iyo aad ugu fiican tahay marka seexo hurdo kugu filan ilaa 8 saacadood ilaa 7 saacadood inta dhaxaysa ilaa 6 saacadood baa la yiraahdaa inta u dhaxaysa laakiin inta la isla yaqaan waa 8 saacadood meelaha insha Allah ilaa 7 saacadood dhaxaysa iska yar markaas soo jeedka habeenkii hadii aanad waqti faa'iido leh aanad ku soo jeedin oo aanad wax faa'iido leh aanad qodobka labaad waxa weeye subaxii quraaco subaxii ku bixin quraacaan taas oo marka la ogaanay hadii qofku subaxii ku baxo quraacaan in iyaduna maskaxda iyo xusuusta dib u keento hoos dhacana ku samayso maskaxda marka waxa kula talin lahaa inaad subaxii ku bixin quraacaan qaadataan quraac nafaqo leh oo dhameystiran qaadato qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa samee jimicsi subaxii hore hadii aad awoodo soo kale hadii ordi karto oo kale amba aad ku dhex jimicsan karto gurigaaga dhexdiisa oo aad qosh ku ciyaari karto taas oo markaa la ogaaday in ay jir in maskaxda iyo xusuusta aad iyo aad ugu wanaagsan tahay aad iyo aad ugu fiican tahay qodobka afraad waxa weeye isticmaal cuntooyin dheellitiran sida cuntooyin isku dheellitiran oo nafaqo leh oo si ay maskaxda uga hesho nafaqo ay uga hesho iyaduna isticmaal markaa cuntada sidoo kale marka waxa la sheegay in kalluunku kale aad ugu wanaagsan yahay iyo qudradda مثلا كله قطرة sida liin macaanta oo kale xusuusta aad iyo aad ugu wanaagsan tahay marka taas ayaa kula talinayaa sidaasoo dadka ka cabanaya in xusuustooda ay aad u hooseyso qodobka shanaad waxa weeye akhri wax badan مثلا quraanka inuu dad islaameenay maadaama ay dad islaameenay quraanka oo kale ku filan xusuusta qofka bini'aadamka soo noqoto inuu aad u akhriyo bari quraan akhriska iyo alla bariga sidoo kale buugaagta aad u akhriso buugaagta faa'iidooyin kale kuwa faa'iidooyin kale aad u akhriso insha Allah qodobka lixaad waxa weeye isku day inaad wax xifdiyi karto sida inaad wax quraanka kale xifdiyi karto hal aayad maalintii 5 aayadood 10 aayadood aad xifdiyi hal suura aad xifdiyi karto iyo wixii kale lamid ah xifdiyi karto telefoonka lambarada telefoonka kale aad xifdiyi karto xusuusta aad wanaajin karto shaqo qabato dadka telefoonada garaacayso inta shaqo qabato qodobka toddobaad waxa weeye ka fogow buuqa iyo walwalka buuqa iyo iswalwalku waxa uu badan dhibta keena in qofku ilowsho uu ku bato iyo maskaxdiisu isku dhaxdaato marka waxaan kugula talin lahaa inaad ka fogaato isku buuqa iyo walwalka kaasoo dhib badan ku haya dhalinyarteena aad iyo aad marka ku kalsoon Ilaahay waxa uu keenay iyo qadarka Ilaahay ku kalsoono kana kalsoono inaad wax qabsan karto oo aad iska deesho bulbulka iyo ila kala calka iyo isku buuqa iska raadso qodobka sideedaad waxa weeye jooji balwada hadii aad balwada leedahay iska jooji sida cabida sigaarka shiishada iyo qaadka iyo qamriga wixii kala lamid ah kuwaasina waxa la ogaaday in iyaguna hoos dhac xusuusta ku sameeyaan maadaama ay maskaxdii saameyn ku yeelanayaan oo maskaxda ay xoog u shaqeynayso ama maskaxda ay dhaawac gaarsiinayso saliska maskaxda dhaawac gaarsiinayaan marka waxaan kugula talinayaa haddii taasi ay jirto iska yari ama iska jooji balwadahaas aan soo sheegay qodobka sagaalaad waxa weeye noqo bulshaawi yani marka aan ku leeyahay noqo bulshaawi yani qof bulshadii ku dhex jira oo bulshada horumarkeeda ka qayb qaadanaya oo horumarka bulshada aad iyo aad uga qayb qaadanaya haddii mid ganacsi noqoto haddii mid dhaqaale noqoto haddii mid horumar noqoto intaba haddii mid caawimo noqoto intaba bulshada qof ka qayb qaadanaya taas oo kugu fududeynaysa inay xusuustaada wanaagsanaato maskaxda wanaagsanaato waa maadaama bulshadii qof ku dhex jira noqoto aanad ahayn qof gaar u xiran isolated ah marka waxaan kugula talin lahaa nafteena faa'iido kula talin lahaa inaynu isticmaalo marka tallaabooyinka soo socda